السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xubuubi luqaax waa shayga aynu u naqaano guushka shinnida. waa meesha shinnidu ay ku dhex samaysa malabka, waana meesha ay ku koraan shinnida yaryar ee dhashaahi. haddaba guushkan shinnida oo la warshadeeyey loona diyaariyey in la cuno waa shay cajiiba oo adduunka oo dhan laga isticmaalo. waxaa loo yaqaanaa dawada dhammayska tiran. waxaa ka buuxa midhahan yaryar faytamiino iyo macaadin, inkastoo dadkeennu aanay ka faa'iidaysan xataa kuwa dhaqda shinnidu. haddii aad ogaato waxtarka midhahan yaryarna waxay kugu dhalinaysaa inaad si joogta u isticmaasho. waxtarka caafimaad ee midhahan yaryari ay leeyihiinna waxaa ka mid a waxay xoojiyaan kartida iyo firfircoonida jidhka, waxaana la isku raacay inay yihiin shayga ugu degdega badan ee daweeye xanuunada ku dhaca maqaarka. dhinaca kalena waxay dawo ka yihiin xanuunada ku dhaca sanbabada, waxaanay ka hortagaan xanuunada keena neefqabatowga. isla markaana iyadoo la sheegay waqtiyadan dambe xanuunada ay dadku aad uga cawdaan inay ka mid tahay xasaasiyaddu, ayaa midhahani waxay meesha ka saaraan mushkiladda xasaasiyadda. dhinaca kalena midhahan yaryar ee laga sameeyey guushka shinnidu waxay meesha ka saaraan bakteeriyada iyo jeermiska ku dhasha caloosha iyo guud ahaanba uurku jirta, waxaanay ilaa xad u fiican yihiin oo ay xoojiyaan aragtida indhaha, waxaanay dawo ka yihiin cilladaha keena dhalla-aanta rag iyo dumarba. waxaad u isticmaali kartaa midhahan yaryar inaad sidooda u isticmaasho oo aad cunto subax kasta iyo inaad quraacda ku darsato. ilaahayna sida saxda ah hayna waafajiyo. waad mahadsantihiin.